gudoomiyaha guddiga arrimaha bulshada golaha wakiilada Soomaaliland xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin Cabdiraxmaan Dheere oo la hadlay warbaahinta SBC ayaa sheegay in guddi ahaan ay u yeeri doonaan wasiirka wasaaradda biyaha Salebaan Yuusuf Cali Koore oo dhawaan sheegay in aanu hirgelin mashruucii biyo balaarinta xumbo weyn ee magaalada Hargeysa rajadii caynkaas ahayd ee la qabay ayuunbaa habeen dhaweyto wasiirka biyuhu intuu hadlay uu yidhi wax alla yaalo wax ka jira ma jiraanoo mashruucaas lacagtiisa waa la cunay yacni rajadii la qabay ee dadweynuhu ku fadhiyeen ee ay ku sugayeen naxdin cajiib leh oo wax la leeyaabaa ayay arrintaasi ku soo kordhisay bulshadii Hargeysa deganeyd guud ahaanba arrintaas wax la yaabay noqotay lacag badan baa ku baxday lacagta waliba la sheegay ee uu wasiirku leeyahay way ku baxday anuu mabaan filim bayna qiyaas ka yeelanayso waxa naxdin ah in mashruuc la leeyahay maanta waxba kama jiraan inkastoo muxuu ahaa weli hadalladu ay isweydaaranayaan oo qaarna leeyihiin wasiirkani wuu iska hadlay ee rajadii way jirtaa because 12 ceel baa la qoday mashruuca waa la bixiyey barkadihii muxuu ahaa stand bybiska booydu ka qaadiyeen baa la qoday dee waxa sidaa u socda in maan la yidhahdo completely waxba kama jiraan waxa muran ka iman kara weeye marka annagu muxuu ahaa guddi ahaan horta wasiirka waanu u yeedhaynaa cid alla yaala ciddii ay khusaysay ee hawshaas naga gashayna waanu u yeedhaynaa muxuu ahaa waxaananu ku talagelaynaa arrintaas sidii loo dabooli lahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Cismaan Caalin waxa kale uu soo jeediyay in xukuumadda madaxweyne Bixi ay dabagal iyo baadhis ku samayso sababta keentay fashilka biyo balaarinta Hargeysa dalkan baahsan baa ka dhacay sida ogtihiinba for the last 7 years dalkan baahsan baa ka jiray boobkaas bay horta iyaduna ka mid noqonaysaa laakiin boobka iyo ayadaba annagu dawladda jirta ee Muuse Bixi ka madaxda yahay iyo golaheeda baarlamaanka iyo hay'adaheeda khuseeya hawshan in hawshaas dabadda la soo dhigo oo si cad looga badheedho oo ciddii ku yeelata ama xil haw haya ama uu haynine sharciga la soo mariyo dabagal dee ciddii dhaqaalaha inooga masuula dabagalkiisa leh annaguna hawlahaan wayna soo gelaysaa waanu yeelana weliba guddidaydan aan mas-uulka ahay baa yeelanaysaa laakiin anigu mid baanan qaadanahayn ceelasha la qoday ee la tijaabiyey ee la yidhi intaasoo biyaabay soo saarayaan ee mashruucoodii dadka la siiyey intaasoo hay-adood qaabilsanayn ee madaxweyne ku-xigeenka maanta madaxweyne ku-xigeenka dalkii uu qaabilsanaa qaadan maayo waxba kama jiraan mashruucan biyo balaarinta magaalada Hargeysa ayaa ahaa mid loo qorsheeyay in Hargeysa ay hesho biyo ku filan iyadoo Soomaaliland ay ka taageerayeen wadamo Imaaraadka Carabta uu ka mid yahay Khalid Ibrahim Abdi warbaahinta SBC Hargeysa